Assalaamu calaykum guys, soo dhawaada vlog yar oo caata ah. Gabadhan vlogya caata ah bay la joogtaa meesha, laakiin guys waa i dhiirigeliseen vloggii maalin dhaweyd soo post gareeyay. Maxaa la dhihi jiray, waxaan u maleynaynaa ka hesheen, anigana waan ka fikiray, waxaan lahaa post gareyn iga tag, waxaan wax ma ahane vlogyadayda saaid baan u nabcanaa runtii. Hadda sababtoo ah waxaan ahay waan ku cusbahay youtube-ka. Marka soo dhawaada, maanta waxa waaye maalin jimco ah, waxaan sameyneynaa jimcaha macnaha routiinkeena inaan la wadaagaynaa. Wallahi bilahi vlogan maxaa la jiray qaar baa iga dhumay, laakiin vlogga gadaal buu interesting ka noqonayaa. Inta horeeto waxa waaye marax, laakiin meelaha gadaale xoogaa maxaa la jiray waan ku faraxsanahay. Inta cusub magacayga waa Rayaan, tiktok waxa igu qoran Rayaan Royal. Waxaan ahay gabar laba ilmood leh oo ku nool wadanka Australia. Alla qosol badan maxaa sheegayaa guys, waxaa jeclahay inaan iska hadlo marka asku nafisno naagtan waxa waaye yaabaholic, she likes to talk, ina war sheegto la iska jeceshahay. Marka waa kana maxaa la jiray, waa ujeedaan in waxaan sameynayno maanta jimco waaye. Xaajigayga gurigu joogay ayaamahan wuu xanuusnaa xoogaa, waa inii sheegay videogii horeeto waan xanuusnayn, laakiin waa ogaanay waxa naga khaldanaa guys. Hargab iyo waxaas moodayn, laakiin virus baa nagu dhacay, daaf baa nagu dhacay. Wax daaf la dhaho maaragtay indhaha iyo ku dhaca. Subxaanallah, babydeeda waxay ka keentay daycare-ka ka keentay. Marka waxaasaa nagu dhacay guys. Bismillah, anaga dhan waxaan ku dhaca aniga alxamdulillah, sababtoo aniga waxaan wiswisley gacmahayga saaid baan u dhaqaa. maanta dhan gacmaha dhaq. Marka igumuusan dhicin ilaahay amarkiis, subxaanallah, laakiin in kulligood buu ku dhacay, saf buu ka maray. maxaa la dhihi jiray guys, waan ka xumahay aniga voice overka saaid iguma fiicna, laakiin waan isku dayayaa maxaa la dhihi jiray inaa interesting ka dhigo. Music iyo wixii waa la igu qabsaday, waxaa la dhahay like waxa waaye copyright-ka igu qabsaday, marka music maanta ma saarayo. Mida kaleeto ani shiikhad ba ahay, marka qaarkood you know music xaaraan waaye, maba rababa xaaraanta, maba rabo music inaan iska ilaaliyo fiican. marmar macnaha xaraaradu way qaadaan, laakiin aan iska ilaaliyaa jeclahay guys. Marka waa kana aniga weelka baan dhaqayaa. Maanta waxaan sameeyay xaajigayga, waxaan ku iri badanaa wuu i caawiyaa, laakiin subaxda jimcaha waxaan ku idhaahday because wuu shaqeeya, waxaan ku iri saaxiib kaale baan ku iri saaxiibow maxaa la dhihi jiray masax sheeqada dhinacaaga ka gal. Ani shaqaale ma ii malaysay, abbaha la janay yaa xariifkan wuxuu sameeyay haa wuu ogyahay waa la is caawiyaa, laakiin marmarka qaarkood wuxuu leeyahay allah mandatory ma ahan, micnaha khasab ma aha xaajigu intuu caawiyo. maxaa la dhihi jiray anuu rabaa micnaha inuu iga xanaajiyo, laakiin inuu like meel iga taabtuu rabaa boogta. marka qaarkood isdifaac buu isleeyahay, laakiin maxaa la dhihi jiray wuxuu dhahay yaa sheekh taymiya wuxuu dhahay kuma khasba ninku inuu caawiyo. marka qaarkoodna wuxuu igu dhahaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam guriga uu ka shaqeyn jiray, maxaa la dhihi jiray xaasaskiisa waa caawin jiray. markuu rabo inuu isdifaacana xadiisyo kale ila soo baxaa. yaa sheekh allah u naxariistaan kuri magaciisa, sheekadaas ma jirtee dhinacaaga ka dhuuq ka leef baan ku dhahay guriga amiin astaghfirullah, macnaha waxaan ka wadaa guriga like dhinacaaga shaqada ka cab, you know. yaa walaalay dhibaato miran waaye. nimanka waxba ha u dirsan baa ku qabanaysa, adigoo dhinac wax ka hagaajinaya bay haddana dhinaca kale ka halaynayaan. qosol wuxuu dhahay meesha buu tirtiray siday ahayd ayadoo ka daran buu ka tegay. ilaahay haddaan been sheegayo guys, I can't believe this guy. like wuxuu sameeyey meel wasaqa, waxaan ku dhahaa kaale hagaaji, meeshiisay ahayd ayadoo ka daran. marmarka qaarkood wasakh uu kasii dhigaa. laundryga dharka uunbuu ku fiican yahay inuu mashiinka ku kurkuree. wallahi qosol waaye, nimanka marmarka qaarkood waxba u dirsan baa ku qabanaysa. haddana maxaa sameeyay qosol, maxaan ku dhahay maalintaas maan like maalin kale waxaan ku dhahay dhowr mar buu igu dhacday igu sameeyay. waxaan ku dhahay kaale kaarooto ii dir baa dhehaysaa. kaarootada waxaan ku dhahay intaad
like kor macnaha qubka kore ka qaada wasakhda ah. Xariifkan kaarootada dhan buu wada like wuu wada xoqay wixii dhan macaa wasakhdii macaa wixii dhan isku aniga waxay qabad marka qaadka iska ooy way iska ooy ciil ama waa qayliya ama waa ooya wada aniga waxaas isku ark waa kana fiiri meeshiisaan uga tagay adana dhegtan ka soo qabto waxaan ku iri kaala waraa dhamaystir waxaan ku dhahaa haddaan dhinto isku ureysiin calaa kulli xaal fiiri xagaan qoon baa isoo weeraray baan ku iri kaameradii baa laygu haystaa halkan yaabna qosol baba ka dhigata shactireba u taaba maantana saas ii daba joogtay naa walaale iga joog naa walaale iga qalay maxaa kaa khaldan yaab kaameradii bahalkan ku duubanayay baba xarfaantani waxaan ku leeyahay daba dhigataba CID bay igu noqotay yaa CID gi Kenya joogo kale way daba dhigatan ku iri maantana creature caadi ahayn waa ilaahay oo xifdigaas maasha Allah tabaarakallah soo qora wallahi waad iga tag ilaahay ku hanuuniyo walaalay iga tag maantana saas ii daba joogtaa gadaal bay iga soo kortaa على كل حال قولي شقتي وانا عبينا وجدا هاد جمعة واي مانتي حريف كان جمعة آذية وحن كلها وراء كالي محل يجري نوسو دعي أو محل يجري يا جمعة هو آذا بريقروا أسرع جرنا لكن مرة أنا وجود ميسي مركوا كان أصيغو مع السلامة نقوله وتجيا جمعة صوت كان يا anigiina waatana xarbaantii yariista ahayd waxay tiri iqaad hadda way daalanta hurda haysa kadib jikadii baan masaxay maxaa la dhihi jiray marmarka qaarkood saas ugu shaqeeyaa marmarka qaarkood meelaheeda way iska mashquushaa inay ciyaartay jecesha laakiin marka hurdo hayso ama gaajo hayso best waaye like ma fujin karo this girls like wallahi yaab marka waa kaas guys gabadhayda mardhow hal sanay noqonaysaa allahuma baarik aniga waxaan rabaa intaan boodboodo beebiyaasha iga koraan inay koraan gabdhaha qaarkood waxaan arkay dhahay alla ma rabo beebiga inay koro intaan inay joogto baan rabaa naa hush aniga ma raba inay koraan baan rabaayo boodboodaan oo meelahooda maraan oo iskuul aadaan anigana aan retire noqdo anyway caana u sameynayaa caata ah halkan sababtoo ah anigii waa baqalalay waa ii jidan guys caataa nafta iga jirta xarbaantan say maalin kasta nagta igu haysaan kuri naaska inaan ka jaraan rabaa mardhow inaan ka jaraan rabaa fitamiinkii iyo wixii igu jiro dhan baa iyadaaba qaadataan isdhahay subxaanallah ilaahu barakeey yaa naas nuujinta way adag tahay aan kuri haraad aniga dhinaca habar bay iga dhigtaa waa saasaan isku dhexdhacayba ilaahay caafimaad iyo caqli ha ka siiya intay heshay laakiin inaa joojiyaan rabaa mar dhow sanad markay gaarto which is next month sanad u buuxsamaysaa hadda caanaheeda way cabtaa maalmahan marka wallahi ma aqaani haddana guilty baa dareemaa marka caanaha marka naaska ka daaya habeenkii dhamay cabtaa anyway aniga tii yareed waatan xarbaantana waxaan barayaa sida xoogaa loo adeego waxaan ku dhahay magaceedii soco qolkaaga leerka kasoo dami oo soo xir baan ku dhahay waan ku dayayay wayba ifaantaba maasha Allah allahumma baarik gaanjibo yar baa ii soo kacday ku shaqeey jaal laborka meesha ka bilaabaan ku calaa kulli xaal maanta waxaan sameynayaa bahalkan baan soo dhaqaya xaajigan u dhiibayaa waxaan geynaa like laundryga meesha dharka lagu dhaqo baan geynaa kusoo dhaqnaa marka meeshaas kusoo dhaqaya insha Allah you can do it adii hadaa rabtid xataa kadibna markuu xaajiga naga tagay gabdhahayga yaraa avocado smoothie baan usoo sameeyay avocadadan aniga ma jecla avocado shakhsiyan laakiin caafimaadkeedaan jeclahay gabadheeda yartaan way jeceshahay ilaa iyo maxaa la dhihi jiray yarayd baan siin jiray caqliga maskaxda u korisaa ilmaha maasha Allah beebideeda caqligeeda maasha Allah waxaan dhahaa avocadada waaye calaa kulli xaal ujeedaa waxay siinaysaa anaga hadda waxaan nahaa baan dhahnaa famil 5 ka kooban laakiin 2 boombalaa nagu jira 2 boombalo familkay ka tirsanyiin markasta waxay siisaa maantana dabaday ka wadaa 2 boombalo gabadheeduna waa umul ayaduna yaab calaa kulli xaal waa in dhaafsiiyee aniga avocadadii baan soo samaystay oo waxaan ku daray keratin wax la dhaho oo maxaa la jira murqaha u fiican halkan waxaan ku sameynayaa baradho macaan
baan babyda u sameynaya. Waan kariyay biyaan ku kariyay intaana freezer-kan gelinaya si markay gaajooto oo kale taan usoo saaraa. Cusbo iyo saliid baan ku daray markay gaajooto usoo saaraa oo u kululeeyaa micnaha cunto diyaarsan marmarka qaarkood aan micnaha meel ku ordayo aan time hayn baan siiya emergency tahay ama maraq aan ugu kariyaa maraq iyo waxaas aan ugu daraa. Marka hadda midaan freshka baan siinayaa bariis yar baan kusoo daray oo shiidan teeda markaan siiyo maxaa la dhihi jiray way seexanaysaa insha Allah. Abaay gabadha caloosha xoogaa fadhida sababtoo ah waxay qaadanaysay kaniini antibiotic sharoobo qalajiya bay cunaysaa. Qalajiyaha ilmaha wuxuu ku dhajiyaa dee number 2 ku dhajiyaa. Calaa kulli xaal waa tana babydeeda maasha Allah buugaagtay jeceshahay inay maxaa la jira akhrido. Wallahi time buu ma helaan buug u akhriyo ilaahay markiis. Walaasheed buug waa u akhrin jiran laakiin ayada ma aqaan saaid uguma akhriyo sidaa tii hore ugu akhrin jiro kaleeto. Laakiin hadda buugaag baan usoo gaday guys. Video cusub baan soo wadaa oo aan buugaag islaamiya kaga hadlayo aan babyyaasheeda usoo galay dhalashadooda. Videoga inaan edit gareeyo rabaa. Calaa kulli xaal kadibna qada yar baan jac ka siiyo u jeedin bariis yar baan halkan ku karinayaa. Hilib freezer-ka igu jiray baan ku daray. Qaadada babyyaasha cuntada lagu siiyaa isticmaalaya meeshaan. Abaay wax kasta adiga waa laga shaqaysiiyaa ma fahantay. Kadibna maxaa sameeyay xoogaa bariis waan ku daray Allah hooyo. Anyway bariis waan ku daray waa iska bariis yaanyo iyo maxaan ku daray basal fajeeto miyaa la dhahaa ama bariis maceeye xoogaa yar filfila saliid waa u jeedaan hilibka waxa waaye lamb u maleynayaa. Waxaan ku daray qorfe miyaa maxay hayl baan ku daray ani haylka waa jeclay ilaahay markii hayl shiidan baa haysta ku daray qorfe shiidan baan ku daraa. Kadib waxaan ku darayaa bahashan peas-kan ku daray babyyaasheeda maxaa la jiray inaa qudaarta baraa rabaa soo ugu dhex qariyaa. Way jecel yihiin marka qaarkood way cunaan anagana healthy. Kadib bariiskan yarka baan caatada baan kasoo ridaneynaa. Xaajiga wuxuu dhahay kabaab baan soo gadanayaa masaajidka waxa lagu gadaa kabaab. Marka maalinta jimcada waxaan ku dhahnay maalinta jimcaha cunto kale different baan kala cunaa. Marka waa kana aniga midi kaleeto bariiskana cunaynaa. Maxaa la dhihi jiray marka guys warkii aan ku dheerayna waa aragtiin waxaan sameynaya. Kadib waxaan aadnay banaanka galabtii kadib markaan xoogaa waan seexday. Jimcaha waxaan jeclahay intaa seexdo waa jeclahay. Kadibna banaanka aadnay baagan ilmaha geynay oo sodoxday iyo waxaasaan coffee la soo cabaynay rabnay inaan u meet gareyno. Marka babydeedu waa tana way cabsanaysaa walaasheed ka weyn markay intaan jirtay bismillah way kori jirtay meeshaan degdeg. Kadib xaaji aniga waa kana waxaan ku yiri magaciisa sawir baan qaadaya caloosha ma aragtay neefta isku celisak asagan run buu u mooday ku ciyaar marka qaarkood miskiin waaye. Run buu u mooday walaa bilaa calooshu sagareeyay aniga gabdhaha yaraa waa kuna baaga ku ciyaarna meeshaas iga tuur. Marka walaa qosol guys video hadaa ka hesheen please maxaa la jira like iyo comment-iga iga soo dhisa. Calaa kulli xaal kadib gurigii baan kusoo laabanay habeen bay noqotay waxaan ku aniga waxaa casho xilligan kama fikiraayo wax macnaha casho fudud baa iska sameysanaynaa baa dhina soo maxaa sameeyay noodle-ka caadiga oo aad taqaanay oo la dhaho gummy noodle. Aniga waxaan sameeyaa noodle-ka horta waan jeclahay cuntada waxa waaye my comfort food like cuntada markaa sad ahay markaan daalanahay waxaa jeclay inaan noodle sameysto oo maraq leh xoogaa yar basbaas ku daro liin dhanaan ku daro maraqan inaan ka bixiyo. Tan waxaan ku daray hilib shiidan noodle-kii caadiga ahaa bacda ku jirta ma aragto oo dadku sideeda u sameystaan. Aniga waxa ku imaato bahala yar oo baakada ku jiro ay ku imaato waan ka tuuraa basbaaska baan kala haraa. Kadib yaanyadeyda anaa ku darsadaa iyo alaab fresh aan ku darsadaa laakiin noodle-sha baa isticmaalaa. Waxaan jeclahay inaan qudaar ku daro macnaha halka waxaan ku darayaa koosto baan ku darayaa ama spinach saa u taqaantid
spinach reer waqooyiga spinach bay dhahanin asxaab reer waqooyi baan leeyahay reer Somaliland oo dhaha I think spinach inay dhahan baan u malaynaya oon ka helaa say u dhahanin so aniga waxaan ahay reer Puntland waxaan dhahaa coastal. Anyway guys, waa kana bahalka kasoo tuura alla bahalkan macaankiisa qofkii ii imaado gurigayga gabdha waliba hadaa hay girl time hadaa haysanayno like hadaa samaysanayno gabdhaha xilliga gurigayga future-ka waxaan rabaa saaxiibada iyo gabar maxaa la guriga ku casuuma habeen micnaa bijaamo xirano oo iska baashaalno waxaan uba u karin lahaa soupkan iyo noodle-kan side baa u jeclaa is my comfort food like marka xanaaqsana marka dhiig ku dhaco marka murugeysanayo marka daalanahay waxa ina cunaa jeclayla markii haddana caloosha ku buuxinaysaa dandanaan iyo macaan uu ku jiraa marka waa kaza guys video inta ku soo dhamaaday subscribe like